السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو قيبتي سدحات اي برنامج رمضانك. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلى الله ربي والإسلام. waxyaabaha soonka buriya waxyaabaha buriya ma ahan waxaan halkan kusoo koobi karno oo aad bay fara badan yihiin balse waxaan kasoo qaadanaynaa kuwa ugu waaweyn ama ugu muhiimsan insha allah. kow, al-aklu aw ashurbu camdan, inuu qofka wax cuno ama wax cabo si ku talagal ah. taana waxaa daliil u ah qowlihi tacaala وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. أيضا وهي عدينيسا إنaysan banaaneen wax cunitaan wax cabitaan kadib balashada fajirka ilaa habeenkii ama dhicitaanka qoraxda. ama qofkii wax cuno isagoo yuusan soonkiisa waa saxiix, kaliya waxaa ku waajibta inuu iska dhaafo waqtiga uu soo xasuusto ama uu ogaado inuu sooman yahay. waxaana daliil u ah liqowlihi sallallahu calayhi wasallam man nasiya wahuwa saa'im faakala aw shariba falyatima sawm fainamaa adcamahu allahu wasaqaa. hadalka nabiga wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam haddii uu qofku iloobo isagoo sooman wax cuno ama uu wax cabo ha dhammaystirto soonkiisa. wax kale ma ahane waxaa quudiyey oo waraabiyey allah subxaanahu watacaala. midda labaad, attaqayu camdan, matag la iska keeno oo qofka si ula kaca uu isku matajiyo. midda saddexaad, alxijaama wahiya ikhraaju dami min aljildi duuna alquruub. midda saddexaad waa toobin, inuu qofka istoobo. toobinku waa dhiig laga soo saaro maqaarka, ma ahan xididka. waa in maqaarka sidan loo dildilaaciyo ama loo jajeexo ayaa laga soo saaraa dhiig. midaas ayaa la yiraahdaa toobin, way burisaa soonka. waxaana daliil u ah liqowlihi sallallahu calayhi wasallam afdal alxaajim walmaxjuum, inuu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam way afurayaan kan la toobayo iyo kan wax toobayo. balse hadda alxamdulilah waxaa jirto aalad oo xilligaas waxaa la isticmaali jiray in meesha la dildilaaciyo, balse hadda waxaa la isticmaalaa aalad oo lagu soo dhuuqo dhiigga. marka midaasi hadda qofkii isticmaalo waxaa kaliya soonkiisa jabaya kan la toobay, balse ma jabayo kan wax toobay soonkiisa. midda afraad, khuruuju dami alxayd walnifaas, imaanshaha dhiigga caadada iyo nifaaska dhiig dhalmada. midda shanaad, niyatulfitr, inuu qofka niyeysto afur. hadduu qofka niyeysto afur yacni intaan la gaarin afurka soonkiisa wuu buray. midda lixaad, arridda, inuu qofka diinta ka baxo nacuudu billah, isaguna soonkiisa waa uu jabaya ama wuu buraya. taana waxaa daliil u ah liqowlihi tacaala lain ashragta layaxbatanna camaluk, qofkii ridooba ama shirkiya camalkiisa wuu buraya. soonkana wuxuu ka mid yahay camalada. marka sidaan uma koobna waxyaabaha soonka ku buro. waxaa ka mid ah alijmaac, waxaa ka mid ah inuu qofka isturo oo yacni cirbad qaato, ha noqoto faleenbo quudina ama cirbad kale, inuu qofka dhiig qof kale u shubo, inuu qofka sandaarashada ku dheeraado, sandaarsiga macnaha xilliga weysada, inuu qofka sigaar cabayo, inuu wax caayo, inuu wax xanto, inuu been sheego. aad bay u farbadan yihiin runtii waxyaabaha soonka burinaya. mawduuceena xiga waa mustaxibaatu siyaam wa makruuhaatu, waxyaabaha la jecel yahay iyo waxyaabaha la nacban yahay xilliga qofka uu sooman yahay ama qofka sooman. insha allah dhammaanteena waxaan filayaa in aan noqon doono kuwa cibaadadooda ay dhowrsan tahay xilli waliba, ilaahayna waafajiyo fawaa'idada iyo khayrka fara badan ee bisha barakaysan ee ramadaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.